بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سان بلان قادنay maanta إن شاء الله تعالى waxaan guda gali doonaa darsigii ahaa cilmaniyada. إن شاء الله تعالى waxay noqon doontaa duruus musalsal ah ama taxana ah haduu Ilaahay idmo. Darsigan ayaa wuxuu yahay darsigii ugu horeeyay إن شاء الله haduu Ilaahay idmo. Maanta waxaan ka hadli doonaa dhowr qodob oo isku guda jira. Adigu waxaan iska oran karnaa waa hal mawduuc weeye. Mawduucaas wuxuu ku koobsanaya definition-ka ama qeexitaanka waxa kala yiraahdo cilmaniyada, ama ha noqoto luqa ahaan ama ha noqoto istilaah ahaan, yani in language and in terminology. Ereygan terminology ahaan waxa loo isticmaalo iyo luqa ahaan ereygani waxa loo isticmaalo baan ku sheegaynaa. Anagoo sidoo kale sheegi doona ereygan xilliga ugu horeysay oo la isticmaalay iyo cidii isticmaashay insha Allah haduu Ilaahay. Saan is leeyahay ereygan definition-kiisu xalqa uu ka badanayaa. Waxaa laga yaabaa xalqad kale inaan ka galno, waayo maxaa yeelay waa erey mucaqad ah weeye, adag weeye, ama waa terminology runtii adag weeye. Terminolojyada ugu adag ayuu ku jiraa. Ereygan marka waa tarjuma cilmi ah oo waa tarjuma xarfi ah waa tarjuma xarfi ah oo la tarjumay kelmadii ahayd secularism. Secularism baa la tarjumay oo carabi ahaan loo tarjumay. Marka maxay noqotay alcalmaniya ay noqotay. Marka waa tarjuma xarfi ayaa la waa tarjuma xarfi ah. Secularism oo la tarjumay weeye. Okay, marka mustalaxan ama termkan secularism waa mustalax runtii aad la isku khilaafsan yahay oo doodiisu aad bay runtii u badanta. Ma noqoto west and east labadaba, yani reer galbeedka iyo bariga dhexe meel kasta la isku haysta weeye. macnaheedu aad baa la isku haysta. Okay, xataa aqbalaadiisa iyo diidiisana aad baa la isku haysta. dadna waa aysan yihiin, dadna waa kasoo horjeedaan. ereygan marka wuxuu la mid yahay xagga khilaafka ka taagan termyada. wuxuu la mid yahay modernizationka oo ah taxdiidka ama xadaadada, enlightenmentiga oo tanwiirkii ah, iyo globalization oo ah cawlamadii. ereyadaasi buu la mid yahay oo ayaguna dood badan ay ka taagantay. marka definitionka intaan guda gelin waliba dhanka luqadan marka hore ku hormarina saan sheegay, iyo ereygan originkiisii iyo meeshuu ka yimid, xagee laga soo dhargeliyey, xagee ka yimid. waxaan rabnaa inaan isla ogaano hal nuqdo keliya. nuqdadaas waxay tahay cilmaniyadda waxaad ogaataan in loo kala qaado laba qaybood. dadku wax badan bay isku khaldaan. yani cilmaniyadani termkan cilmaanigu wuxuu soo maray marxalooyin badan buu soo maray. isbedelo iyo taqayuraad baa ku dhacay. wixii loo yaqaanay xilli kale looma yaqaano. yani hadda xaaliyan waxa loo yaqaano xilliyada hore tagay looma yaqaano. marka cilmaniyaddu guud ahaan waxay noqonaysaa laba qaybood, iyadoo yani according to qaabab kale iyadoo marka laga fiirinayo siyaalo badan baa loo qaybiyaa, laakiin si guud waxaa loo qaybiyaa laba qaybood: cilmaniya juz'iya iyo alcilmaniya shaamila ayaa loo kala qaadaa. cilmaniyo waxa weeye kooban iyo mid ballaaran bay noqonaysaa. okay, midda marka kooban oo angalka dayiqa ah ama ciriiriga ah wax ku fiirinaysa, iyo mid angal waasic wax ku fiirinaysa, labadaas loo kala qaaday. qaybayaal kale oo loo kala qaado waa jiraan, iyadoo markaas waxaa loo yani la fiirinayo meelo yani according to marka hadba waxa jooga loo fiirinayo. sida masalan waxay dhahaan oo kale waxaa jirta cilmaniya mutashadida iyo cilmaniya muxayida. cilmaniya mutashadida ah oo extremist ah iyo mid iska dhexdhexaada. waxay dhahaan waxaa jira cilmaniya protestantiya iyo cilmaniya katolikiya. waxaa jira faransiya, cilmaniya faransiya, namuudaj faransi waxay dhahaan, iyo anglo american. qaybaha waa jira. qaybahaasi waa qaybo jaanibi ah wey oo hoose. si guud marka loo qaybinayo waxaa loo qaybiyaa cilmaniya juz'iya iyo cilmaniya shaamila. marka inta waan isla ogaanaa. labadaas marka qaybood waxaan tacriifkooda sheegi doonaa markii aan isla ogaano. kow, ereygan originkiisa xagee ka yimid. labo,
qawaamiista ereygan macnuhu ugu jira maxay tahay waliba qawaamiista reer galbeedkan ku hormarin hadduu lahaydmo berri baa laga yaabaa insha allah hadduu lahaydmo inaan ama maalmaha soo socda hadba ilaahay hadduu waafajiyo inaan markaa qawaamiista carabeed u noqono iyo culummada carabta waxay ka dhaheen marka hore waxaan ku hormaraynaa qawaamiista reer galbeedka ereygani macnaha ugu jiro baan marka hore sheegaynaa hadduu lahaydmo okay iyo xagee laga keena ereygan secularism waxa ka soo horjeeda dhahaan waxa la dhaho fundamentalism secularism iyo fundamentalism waa laba erey iska soo horjeeda ama waxa loo yaqaan al-cilmaniya iyo al-usuliya okay marka al-usuliyadaas waa mawduuc kale hadda iskuma furayno mawduucaas mar kale insha allahu tacaala waan ka hadli doonaa laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeye secularism baan ka hadlaynaa oo cilmaniyadda marka saan sheegnayba cilmaniyaddu waa tarjumaad ereyga la tarjumayo oo secularism kala tarjumayo okay ereygan marka xagee laga keenay xagee laga soo dhalindhiyey xagee laga soo dhamashay ereygan waxaa laga soo dhambashay erey latini ah oo ah seculum ereygaas laga keenay seculum marka seculum macnaheedu waxa weeye waa age ama era oo ah casri ereygaasaa marka laga keenay waagi hore waanaga sheegnay ereygu soo maraaxil waagi hore ereygaas secularism ah waxaa la aaminsanaa inuu ka yimid maxay seculum ayuu ka yimid okay seculumka marka xilligaas la joogay waxaa loo macnayn jiray seculumkaas macnaheedu wuxuu ahaa era ama age oo ah alcasr ama waxa loo yaqaano generation ama century waxaas oo dhan waa lagu tilmaamay macnayaashaas ayuu yeelan jiray xilliga hore wey okay middle age xilliyada dhexe seculum ereygii seculum ah macnihii loo isticmaalayay wuu bedelma oo wuxuu noqday mid loo isticmaalo macno kale oo wuxuu yeeshay macnaha the wall ayuu noqdaa caalam seculumta waxay noqotay the wall ayay noqotay okay marka waxaa jiray erey kale oo asna latini ah oo asna wallka loo isticmaali jiray ama caalamka loo isticmaali jiray oo ereygaasna wuxuu ahaa mundos marka xilliyada age-ka dhexe labadaas erey ee la isticmaali jiray oo ah seculum iyo mundos labada waxaa loo isticmaali jiray the wall caalamka laakiin maxay ku kala duwanaayeen waxay ku kala duwanaayeen midna wuxuu ahaa albucd azamani oo seculum yantawi cala zaman asagu wuxuu koobsanaya maxay zaman ama waqti mundosna asna wuxuu koobsanaya maxay makaan marka kana wuxuu ahaa bucdi zamani oo seculum midkana wuxuu ahaa bucdi makaani ayuu ahaa xagga lafteeda falsafad baa ka dhalatay oo falsafadii yoonaan iyo cibraaniyiinta iyo waxaan ku rahdaa cibriyiintii baa xaggaas u khilaafay oo qolayn waxay lahaayeen mundos waxa weeye waa makaan waa alcaalam almakani macnaha waxay leeyihiin caalamku taqayuraad baa dhexdiisa dhexdhaca isbedeladu caalamka gudihiisa dhexdhacaan laakiinse caalamka wax taqayura oo asaga dusha uga yimaada ma jiro daadminis caalamku waa qadiim waa horreeyey marka falsafada noocaasa oo ah albucd almakani ama caalamku inuu qadiim ahaa oo caalamku taqayur uusan taqayurku dhexdiisa dhex dhaco laakiinse uu dusha taqayur kaga imaan falsafada waxaa aaminsanaa yoonaanka waagii dambana islaamka xataa uu soo gudbitay rag badan falsafada aaminay ayaa jiray okay falsafadan kale oo ah seculumta oo ah albucd azamani oo caalamku inuu yahayba taariikh inuu yahay adduunku waa taariikh weeye musalsala waa wax iskale meel ka soo bilowday meel ku dhamaaday falsafadaasna waxaa aaminsanaa qolooyinkan la dhaho cibriyiinta ama yuhuudda okay quruntii dambe marka falsafadii waxaa awood badatay aaminsanayd albucd almakani oo caalamku waxa weeye inuu waxa weeye bucdi makani yahay oo dhexdiisa wax dhex dhacaan laakiinse wax dusha kaga soo dhaco taqayur dusha kaga yimaada usan jirin falsafadaasa qarneedii the middle age-kii falsafadaasa aad u xoog badato tii kala harreysa okay ereygan marka laftigiisa ereygan la dhaho seculum waxay dhahaan
wuxuu la mid yahay oo la macno yahay erey kale oo asna Yunani ah. Secular waa erey Latini weeye isagu, laakiinse wuxuu la macno yahay dhahan erey la dhaho erey Yunani ah oo la dhaho ion. Ion iyo secular waa isku macno dhaha. ion waa casri, secular waa casri. Mundusna asna waxay waa kalima muraadifa lil kalima Yunaniya cosmos. Mundusna ayadana waxay muraadif la tahay ama la macno tahay ama similar la tahay kelmadda la dhaho cosmos oo loola jeedo al-kawn. Okay, marka waxaan ogaanay hadda kelmaddan secularism meesha ay ka timid ogaanay oo secular ayay ka timid. Secularna marka hore macno iska lahaa previous age, middle age na macno gooni ayuu yeeshay. Marka hore wuxuu ahaa al-casr iyo waxa weeye al-jiil ama al-qarn ama generation wax saas loo oran jiray. markii dambana macno kale oo yeesho al-caalam ama the wall ayay secular noqotay. kelmadan secularism ama secular xilliga uu horreysay la isticmaalay waxay ahayd markii uu dhamaaday dagaalkii loo oran jiray 30 years war dagaalkii 30 sano. dagaalkii 30 sano markuu dhamaaday heshiiskii loo oran jiray Saltivia. heshiiskii Saltivia. heshiiskaas Saltivia oo ay gaareen markaas qoodihii dagaalamayay laguna aas-aasay laguna dhisay waxa loo yaqaano dawlad qowmiye ama national government lagu dhisay ama dawlad xadiida modern government. heshiiskaas ayaa ereygaas markii uu horeysay lagu isticmaalay. okay, dagaalkaas 30 sano socday oo loo yaqaano 30 years war wuxuu ahaa dagaal laba qaab ah isku jira. dagaal Catholic iyo ka dhaxeeyay Protestantaha ayuu ahaa, kadibna dagaal siyaasi isku bedelay oo markaa dawladda badan ay qayb qaateen. dawladda markaas ugu caaday hogaaminayna Faransa iyo waxay ahaayeen dawladda Spain ayaa hogaaminayay. dawladda badan ay qayb qaateen sida Norway iyo Sweden iyo dawladda markaa qaatay. marka dagaal aad loogu baaba'ay ayuu ahaa. dawladda u badan ku baaba'day waxa la dhahay inay ahayd Almaaniya. 30% raggeeda ayaa ka dhintay ilaa la dhaho rag la'aan baa meesha ka dhacday oo dumarkii isku soo haray. marka heshiiskaas Saltivia baa kelmaddaas markii ugu horeysay secular lagu isticmaalay ayay dhahay. okay, وهو التاريخ الذي يعتمده كثير من المؤرخين بداية لمولد الظاهرة العلمانية في الغرب. وانا تاريخ ايضا مؤرخينته اي اعتمادان ان ay tahay ظاهرة علمانية ama terminology علمانية xilliga ugu horeysay oo soo muuqdo oo waxa way caalamka soo. okay, marka termkan marka hore mustalaxa marka hore wuxuu ahaa macnihiisu ama dalaaladiisu wuxuu ku tusanayo aad ay u xadidnay oo ma ahayn wax shaamil ah, ma ahayn wax yar oo kooban ay ku tusinaysa. Almaaniya maxay ahayd marka calmana maxaa marka xilliga la oranayay. xilliga calmana waxay oranayeen waxaa lagu magacaabayay يعني waxa loo yaqaano naq mumtalakat al-kanisa ila as-sulta as-siyasiyya. يعني kaniisaddu waxyaalahi ay haysatay mumtalakaadkeedii in loo wareejiyo awoodda siyaasadeed markaa jirta ayaa la oranayay. ereyga saas loo isticmaalay marka hore macnahaas ayuu iska lahaa. macnaha kaniisaddii waxyaalahi mumtalakaadkii iyo waxyaalahi ay meelaha idaareyn jirtay yani waxay iska lahayd meelo badan oo idaareyso oo xilligaas kaniisaddu aad bay awood u lahayd. marka waxyaalaha inta laga wareego dawladda inay la wareegto ayaa la oranayay. okay, marka waa iska macna muxadad weey. Faransa qarnigii 18aad kelmaddan waxaa loo isticmaalayay oo dadka yani min wajhat nadar al-Catholikiya. yani Catholikiyiintu waxay kelmaddan u arkeen cilmaaniyada ama secularismka waxay u arkeen المصادرة الغير الشرعية لممتلكات الكنيسة. يعني إن laga wareego waliba si aan sharci ahayn wixii kaniisadu lahayd saas ay u arkeen qolooyinkan waxa weeye kaniisada. تعريفkaas ayay waxa weeye ku taariifin jireen المصادرة الغير الشرعية لممتلكات الكنيسة ay oranayeen cilmaaniyadu waa saas. qolooyinkan kala falaasifada oo marka difaacay caqlaaniyada iyo tanwiirka waxay difaacayeen waxay oranayeen
المصادرة الشرعية لممتلكات الكنيسة لصالح الدولة. أوكي، وأنا وإن لقى قاض سي شرعية لو قاضه وحياله مركز أوده كنيسة مركز أو ممتلكات كذا أي هيستي حياله هيستي دولة دنا مركز الأول هيشيو مركز أرجو معايا بس قضية يسقح يعني كنيسته حياله أوده ترى بما لها طيب كم لقى قاضه أو ممتلكات كذا لقى قاضه دولة الأول هيشيو وإنتاس. أوكي، مركز أنت هربنا وحيسقح يعني ألمانية جزئية يسقح ألمانية جزئية يسقح. أوكي كذب يعني كلمة دي حوا يرى معناه دو يرى بلارتي وحوا معنى زيادة أي يرت لكن سولي ما ينقل شاملة ما ينقل جزئية ويكسر تقطع لكن شاملة ما يجاري ريديو جوهر يسوي كتاب قطة أو كلمة ده أسكها هذا الشيء وحال الوقت الماما نينكل أوريجري تشورج هوليوك تشورج هوليوك حقوقها نينكل أوري أو كتاب قرأ secularism كتاب قرأي مقعي صلى الله The Principles of Secularism أيوة قرأ سنة يكون 647 marka waxaa lagu tilmaamaa awal shakhsi oo dhalaaliya ya si fiican u tanfiidiya kelmadaas ah secularism qof u horeyso ka hadla kitaabka qora dhalaaliya kelmadaas ayuu ahaa waa George Holyoake ayaa la yiraahdaa wuxuu dhashay 1817 wuxuuna dhintay 1960 ayuu dhintay. Okay, ninka waxaa la sheegaa muu ahayn nin falsafi ah ama waxa way analyst ah ma ahayn wuxuu ahaa la dhahaa newspaper editor maana waxa tafatire wargeys ayuu ahaa ninkaas marka wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay oo kelmadaas si toos ah u qeexa oo hadla marka waxa la dhahaa shakhsi ugu horeeyay oo kelmadaas si cilmi ah uga hadla ayuu ahaa George Holyoake. Okay. marka wuxuu bixiyay bay dhahan taariif dhexdhexaad u iska dhigayo maxay iska dhigayo wuxuu yiri ayadu carabiyan soo naqlaynaa insha Allah haduu ilaahaydo kitaabka waxaan ka soo naqlaynaa kitaabka la dhaho al-ilmaniyya al-juz'iyya iyo al-ilmaniyya ash-shamila oo iska leeyahay Dr. Abdulwahab al-Masiri waa ragga ugu waaweyn oo kutubta ka lifay uu kamid yahay caalam al-arabi Abdulwahab al-Masiri kitaabkaas waxaan kula talinayaa dadka inay akhriyaan al-ilmaniyya al-juz'iyya wal-ilmaniyya ash-shamila. Okay, wuxuu leeyahay marka uu soo tarjumay marka hadalkiisa wuxuu yiri ninka markuu iska dhigay qof maxaayid ayuu iska dhigay oo mustalaxi yani wuxuu ka dhigay mustalax dhexdhexaad oo markaas ilhaad iyo atheism aan u ilanaynin sidoo kalena aan u ilanaynin qoladan la adri qolay dhahan baa jira macnaha la adri wadada iska nool waxa ma garanaya la adri iyo ilhaadiyin iyo rabbaniyiin iyo dad badan kala jira. Okay, markaas wuxuu iska dhigay dhexdhexaad marka wuxuu تعريفي الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التسدي لقضية الإيمان بالقبول أو الرفض. وحوليه وإن الرمية إن الصورة قالت هاي نولش بني آدم إلا هجاتيو أيضا مركز على استعماله طرق مادية. طرق مادية محاولة طرق مادية وحاولة والتجربة الشخصية. عقلي وحيلا متكن أيضا الاستعمالي ما كان دين شغل ماله يعني قفك بني آدم كحالة يقول لها جاتي أيضا طرق مادية لاستعمالي مش طرق دينية. أوكي دون تسدي لقضية الإيمان بالقبول أو الرفض أيضا ما كان لو بحينين قضية إيمانك يلد يؤدي به يعني دين معناها وين اللي بتقريه لكن صدقكم مركي أريمو ده جاتي سنية وين يسدين أمرنا أيوة تدريبه الشخصي ده يعقل جوده إجراءات قضاء إنك عشرة ساس مركز أقولي مركز علمانية شاملة مجارين جزء إذا مركز سلتك الثقافة كده واحد موضوع نوع من الشمول إنه كجور ومعناها دين تحاول إن على الجايو دين تنتهي على الجايو وضدكم مركز هرمو ده جات سنة إن أي طرق مادية أمران أو دين مركز أي سنة مرة كتاب كيس أنا وأنسي أخري أنت صح كسر نخرانية دكتور عبد الوهاب المسيري كتاب كون أخري مركز أنا شخصيا marka wuxuu leeyahay secularism is the study of promoting human welfare by material means measuring human welfare
by utilitarian role and making surface of others a duty of life. wuxuu leeyahay almaaniyadu waa in la daraaseeyo waa daraaso ama daraasayn the study of promoting human welfare waa in la daraaseeyo sidii kor loogu qaadi lahaa barwaaqada ya ama rafaahiyada qofka waliba ayadoo markaa la isticmaalayo material means ayadoo markaa la isticmaalayo maxay wasaa'il maadi ah ayadoo la isticmaalayo ya okay wasaa'isha maadigan waxaa looga qiyaas qaadanayaa wuu ku leeyahay waxa loo yaqaano qaacida nafciya wasaa'isha maadiga waxa weeye wasaa'il wax alla wixii nafci bini aadamku leh ayadoo la marayo by the utilitarian rule waxa weeye waa alqaacida nafciya ayadoo la marayo maxaa nafciga qofkan u leh nafci bas baa la fiirinaya okay lagana dhigayo dadka waxa weeye in loo khidmeeyo waajibka nolosha okay marka ninka asaga ahi wuxuu leeyahay almaaniyadu waxay galaysaa booskii waxa loo yaqaano laahuudka ay galaysaa sababtu waxay tahay uu leeyahay laahuudku shaqadiisa waa gudan waayey adduunkana wuxuu ka dhigay adduunku inuu yahay wax mixnad inuu yahay uusan wax faa'iido lahayn waana wado lagu sii maray aakhira lagu tagayo oo macnaha caalam afdal lagu sii aadayo weeyaan wax kaloo faa'iida u leeyahay marka wuxuu leeyahay annagu waxaan aaminsanahay yani noloshu inay faa'iido dadka u leedahay dee ninka raggaan tajribadiisa inuu isticmaalo markaa nolosha waxa weeye wax ka soo saarto marka xilliga ayada cilmaaniyadda xilliga ayada bilow bay ahayd marka diintu markaas masiixigu waxay ahayd qofka bes qof aakhira dhankeeda bes ee dadka u duweysay adduunkana way kala dagaalamaysa adduunka waxay lahayd adduunku waa wax xun adduunku waa mixnad marka aakhire ayaa waxa weeye xaggaas aakhir yaalla midda kale waxay ahayd mid dadka u diiday inay fakaraan oo waxa weeye caqligooda isticmaalaan sidoo kale waxay ahayd mid u dhaxaysa ilaahay iyo qofkii marka dadka deeq iyo cirri bay dareemeen saa darteed baa waxaa imaatay marka inay dhahaan annaga wixii dan noo ah ayaan raadsanayna okay laakiin diinta islaamku way ka duwan tahay waxaasoo dhan diinta islaamka qofka iyo asaga waxa weeye isaga iyo ilaahay waxa uu dhexeeyaa oo maanta wadaad adiga iyo ilaahay idin dhexeeya ma jiro midda kale diinta islaamku yani wixii dadka anfacayo dhanba يعني لصالح البشر ولصالح البشر يا حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله مالك الصوم مصلحة بن آدم كتالو إله شرعي سلوية له دين الإسلام صاصي قبطان مركوا بالعكس أوكي هذه ما قال دون هذا إلهي إنه مركا نيكا أصغى بأوهري عيدي دلاليسا مصطلحات سيكولاريزم نيكاسا كوها نيكا أوهري دلاليا قواميستا مركا هدان أنقنو reer galbeedka waxaan soo qaadanaynaa qaamuuska la dhaho Oxford Dictionary wuxuu ku taariifinayaa cilmaaniyadda the principle of separation of the state from religion institutions wuxuu ku leeyahay waa mabaadida looga soocayo stateka ama dowladda mu'assasaadka diinta يعني والدولة دي مؤسسات كدينتي إنك لصاروا يساسوا لي أسوء مركب مصطلح نوعنا قاب قد تعرفني واقع كالشائعة وضد كلنا أي قناة أو فصل المؤسسات الحكومية أما المؤسسات السياسية عن المؤسسات الدينية يعني مؤسسات كي سياسية هي مؤسسات كي دينية إنك لصاروا وسيلة شائعة رجال بيتك يبرق دحى إيميل خصوصي الشائعة لو يقنوا ومصطلح شائعة أوكي marka taa waxay noqonaysaa marka cilmaaniye juz'iyya taasal lahaa marka cilmaaniye juz'iyya okay dictionary sidoo kale Cambridge Dictionary asana wuxuu leeyahay the belief that religion should not be involved with the ordinary social and political activities of country wuxuu leeyahay waa in la rumeeyo in diintu aysan ka qayb qaadan karinin with the ordinary social and political activities يعني نشاطاتك بولشيد يا قوى سياسية وطنك سمعت نشاطاتك بولشيد هي قوى سياسية وطنك يعني مركو حمود ده مصطلح قابك وتعريف زي اكسفورد هي قاب كامبريدج اللي كلا دوين تانا كبلارن وارتن سمع
تيورا محاي دينتي وحلا كلا صارية بس هي دولتي يعني مؤسسات دينتا هي مؤسسات دولتهم على كلا صارية تلا كيس وحي نقطي ويكشم لسنة محاي تري وإن دينتا لغا صارو يا دقاقية أما وحا activities of social and political يعني برشدي اجتماعي هي السياسة وإن لغا صار محاي دينتا لغا صارو marka tan waa cilmaaniye shaamilow marka diintu macnaha dowr kuma laha nolosha ama xayaa wax dowr diintu nolosha kuma leeyahay tan marka waa cilmaaniye shaamilow tan marka dadku badan waxaad moodaa inaysan aad u fahansaneyn cilmaaniyada maanta lagu dhaqmo oo qarniga 20aad ka soo bilow 19aad ka soo bilow 19aad 20aad waliba 19aad aakhirkiisii ilaa 20aad ilaa 21aad aan ku jirno falsafadii wax macnaha wuxuu isku bedelay cilmaaniyadu qaabka noocan in diinta laga saaro nolosha oo dhanba laga dhex saaro waliba taariikhdiisa fahmo shay doona dulahay nolosha oo dhan laga saaro sida kaaga muuqato Soomaaliyeed wuxuu leeyahay the belief that religion should not be involved with the ordinary social and political activities of country Soomaaliyeed macna nashaadaadka caadiga ah oo bulsheed iyo kuwa siyaasadeed ee wadanku leeyahay diinta inaysan qayb ka noqon waa Cambridge Dictionary ka fiirta Okay, Oxford markuu eraygan macnaheeyo soo siyaalo badan uu macnaheeyaa marka hore soo sheegay hadana qaybo kale ka sheegi doona hadii lahayd mas'uul ku soo qaaday kitaabkan al-cilmaaniye juz'iyya wal cilmaaniye shaamila oo iska leeyahay Dr. Abdullah Masiri wuxuu leeyahay cilmaani maxaa laga wadaa secular xuyi cilmaani qofka cilmaaniga warta macnaheeya marka uu leeyahay cilmaani waxa laga wadaa yantami lil hayaa ad-dunya wa umuraha macnaha nolosha adduunka iyo umurtada ayuu yeelanayaa qofkaas waxaa la mid ku leeyahay madani waadi wazamani baa la mid ariyaha soo cilmaani ay la mid yihiin bulay okay sidoo kale wuxuu ku macnaheeyaa kelmaddan cilmaani wuxuu leeyahay marka hore eraygan waxa loo isticmaali jiray adabka iyo taariikhda iyo fanka khaasan muusiqada kale waxa la oran jiray cilmaani ayaa la oran jiray waxa soo dhan baa loo isticmaali jiray sidoo kale waxa loo isticmaalaa ku leeyahay cilmaani ay qayra macni bi khidmati ad-din waa qof diinta aan danka lahayn diinta aan u shaqeynayo okay أما وغير مكرس له وقفا ودكم بحنين أما وقت قلنا دينتي غير مقدس غير ومدنس وحاصل ما له استعمالش سوى كل كلية الكلمة المالي وأيها روح له استعمالش لي قريها مباني له استعمالش وحل ورنش المباني العلمانية المباني العلمانية محل وضع وقريها العلمانية محل وضع وقريها أن الله ديارين أما لو قلت لك لأن أرمي ديمين اللي هو استعماله أوكي مركا معنى ياشوا صوت واحد سنة معنيال جزء أوي مركوا علماني جزء هيدوي وصيوة يروح ليه هاي سواء العلماني هو الذي ينتمي إلى هذا العالم الآني المرئي وقفك نسبة الشيغانية أما ونسبة الشيغانية عالم كان حدا تشوغا ولا أركيو تمييزا له عن العالم الأزلي أسوأ مركا لغسو عيو عالم كأزلي هو الروح أنا قف ونسبة الشيغانية عالم كان أدونك ويان شغل كلهن عالم كآخره مركا تسمعت وتنوحا وهي مركا علمانية شاملة يعني وقف أدون وي قف آخر الشغل كله ما هذا كواحد هي كامبريدج أكسفورد ديكشنري أكسفورد بقوا كيسا عليه هو الذي ينتمي إلى هذا العالم الآني المرئي تمييزا له عن العالم الأزلي والروحي عالم كأزلي الروحي على صاري مركا هو عالم حواسوي مركا وعالم كإتوس أو تفسي بس المريض سواء كان وحوليه هي وحن كودة شرنا ديكشنري أكسفورد وحوليه هي يهتم بهذا العالم فحسب غير العالم الروحي عالم كان بس بوقف قوة صارية عالم الروحي لحكم مجلي أوكي marka macnayaasha hore oo saddex aan soo sheegnay ay waxay ku tusinayeen cilmaaniyada juz'iga kuwan damana waa cilmaaniyada shaamila macnaha qof adduun bas weey aakhira shaqo aan ku lahayn okay soo kale uu macnaynaya wuxuu leeyahay marka intaas waxay ahayd waa secular oo qofkii ah cilmaaniyada markuu wuxuu ku macnaynaya Oxford علمانية وحكم عنها هي العقيدة التي تذهب إلى أن الأخلاق لابد أن تكون لصالح البشر في هذه الحياة واستبعاد كل اعتبارات الأخرى المستمدة من الإيمان بالإله أو الحياة الآخرة وحليه وعقيدة كنت جيسة يا إن أخلاقه لابد أن تكون لصالح البشر أي لغا مارمان أطهي إن أي نقطة دنت حوي بشرك أخلاقه هو دنت بشرك إن لغا مارمان نقطة معناها بشرك أي أخلاق دي سيها وليس إسكاوتا أصدق أي سمي أخلاق ديس
واستبعاد كل الاعتبارات الأخرى اعتبارات كلها ماشي على سارية سيدا محي ومن الإيمان بالإله إله إله الرمية والحياة الآخرة نرش آخره يعني نرش آخره إله الرمينتي سيوحى سؤال ماشي على سارية لكن سقفه أصلا مركا وحوي أخلاقيات كيس يوحي أصلا سيدا أنتوا وجرتم بو أصلا مركا كل شخص سنيرو أنا مركا عقلي سوء فريق سيدا هو ذي نفتدي فريسو أيام نولانيا أن أشوفيا إله إله الرمينتي سي آخره حوي جمجي ساسو هو فسرية أوكسفورد علمانية مركو علمانية شامل كاهي أوكي سيدو كلا انسيكلوبيديا بريطانيكا انسيكلوبيديا بريطانيكا وابسد وين ويو انسيكلوبيديا وموسوعة بريطانية انسيكلوبيديا بريطانيكا أنا وحلو يقن دائرة المعارف البريطانية السيكولاريزم حيكون فسر هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها وذاتك يعني وحركة ودقائق بولشيد بولي تاسو قصديسا ذاتك إني إيشو أو أي توجيهيسو من الاهتمام أي كإيشوي أي كإيشو ذاتك أي كإيشو من الاهتمام بالآخرة آخرة إني أود صارا أو إيشا إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها يعني وحوي وحركة دقائق بولشيد كاسو ذاتك آخرة كعلنية وندوية ذاتك هي أدونكي أوكي marka waa falsafadii ama waa cilmaaniyadii shaamilka ahayd marka cilmaaniyad shaamila iyo cilmaaniyad juz'iyya hadan toos u macnayno sida uu ku macnaynayo doctorka weyn oo doctor Abdul Wahab al-Masiri kitaabkiisa oo cilmaaniyad juz'iyya iyo cilmaaniyad shaamila cilmaaniyad juz'iyya waa tan dad qoran ay yaqaanaan oo ah faslu diin ani ad-dawla ama ingiriis ahaan waxaan qoranaysaa separation of church and state waa kaniisadii iyo in la kala saaro dawladii ama faslu al-mu'assasat ad-diiniyya مؤسسات الدينية إن لقى صار عن المؤسسات السياسية مؤسسات السياسية هي كوي اقتصادية معناها دينتو إن يسن شغل قلان قال كوي لنا أما شغل كوي لنا أرمها جو عمل السياسات يجو عمل الأقالة ودو كوجاري وأي كوي كاتو حيالها كلام كاس أسوأ علمانية جزئية أوكي العلمانية الشاملة نوحوي وفصل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن الحياة في جانبه العام والخاص وإن لغا سوعو قيمكي بني آدمنimo iyo value ama qiyamkii bini aadanimo iyo kuwii akhlaaqeed iyo kuwii diimeed in nolosha laga saaro fi jaanibihi al-aam jaanibkeeda caamka iyo jaanib khaaska oo qofku marka asagu doono uu noolaado kaliya maaha diinta kaliya maaha cilmaaniyada ka soo jeedo tan shaamilka oo maanta jirta cilmaaniyada shaamilka waa mid qarniga 21aad ila 21aad إلى سعرتونات بلوجيسي المدينة هذا أدون خايستوي معناها قيم كأخلاق بلاد على مسك كسر شيء أخلاق غير كيوم بكسر شيء بنادك هو حيل هذا حي ميل كسيد بده جلسة ميل كسيد بده جلسة وقرها لجلسة يعني قويس كبير فرها لجلسة أبيه يعروف تيسي بفرها لجلسة واحد فرها لجلسة نيكي ناكت إسقوي وعلمانية شاملة مركو حيل القف أصول صوت عليه هاي حسمي حلو يقنا النسبية المطلقة أنا سيدا يعني النسبية المطلقة وحويه قف كالسبق وحو الشر وأركان وحو خير وأركان معناها خير في شر محددة معه يعني قف أنا وحو شر وأركان أظن وحو شر وأركان وحو خير وأركان وحلايا واحد شر وأركان أنا خير وأركان مثلا بكوا سوقا قلة إن نينكو إنه قبل يسقط واقع يقول لي عقله مديدي عقله مديدي يعني محايل عيد وتقول كره حسن marka macnaha diintii iyo akhlaaqda dhammaan baa la iska dhigay hawa nafsi raaya iyo marka waxa la raaya maxay naftu dadku waxay farayso okay xayawaanaadka la hadii loo galmoodo loo tago waxay ku leeyihiin waxa laga yaabaa maxaa ku ogeysay waxa laga yaabaa xayawaanka laftiisu ku raxsan laga yaabaa hadii marka xuquuqdii xayawaanka lagu tumanaynin oo xayawaanka caadi la raxaysanayo waa iska caadi leeyihiin dhimale xayawaanka ku raxsan laga yaabaa marka waa yani qiyamkii bini aadanimo kuwii akhlaaqda kuwii diinta ya oo nolosha laga saaro mideeda guud iyo mideeda gaar ahneed kada waa aragtay dambeed waxa ka socda ninka inuu guursan karo gabadh inay gabadh guursan karto ilmihi in waxa way idhaad uu sameeyay ilmihi la iska soo riday la dilayo waliba dawladda xataa ay farayso ilmaha la soo dilo la rido marka cilmaaniyada shaamilka waa asaas macnaheedu waa diintii qiyamka insaaniga iyo qiyamka akhlaaqiga iyo midkii diiniga oo nolosha laga saaro
akhlaaqdii oo lala dagaalamo bini'aadantinimada oo lala dagaalamo in lala dagaalamo diintii oo waxaas oo dhan laga saaro maxay nolosha teeda guud iyo teeda gaaraneed oo qofku marka asagu jecel yahay hawadiisa iyo asagu rabo oo jecel yahay qofku inuu noolaado inuu asagu soo rabo oo jecel yahay hawadiisu ay hadba ay farayso waa inuu noolaado khayrkuna waa nisbi sharku waa nisbi magarad qofkan wax dheeranaya wax dabraya ma jiraan wala qiim ban celinaynin wala akhlaaq ban celinaynin wala diin ban celinaynin wala wax dheeranaya ma jiraan asagu soo rabo oo jecel yahay waa maadi qofkan maadi baxti aqlaani baxti aw marka cilmaaniyada noocaas waa cilmaaniyad totally diinta ka hor imaanaysa weeye insha Allah taala taa marka war magaceedu in laga hadlo uma baahna taas way qofka soo dareemi karaa diinta kaliya islaamka kaliya kama hor imaanaysa waxay ka hor imaanaysaa dhammaan diimiyo dhan bay ka hor imaanaysaa Christianity ka hor imaanaysaa yuhuudiga ka hor imaanaysaa diimaha adduunka ka jiro dhan bay ka hor imaanaysaa waxay ka hor imaanaysaa qiyamkii bini'aadamka oo dhan bay ka hor imaanaysaa diinta laga tago waxay ka hor imaanaysaa insaaniyadii ay ka hor imaanaysaa marka cilmaaniyada noocaas waa cilmaaniyada hadda qarniga 20aad iyo 21aad hadda jirto adduunkan ka aragno waliba aadka loo faafinayo oo dadka waxa lagu faafinayo qofku inuu noqdo qof nafci ah aniga maxaa faa'iido ugu jirtaa bas ya marka taa waxa ka dhamaysa qaanuunkii yani siraac yani alqawi qofka qawiga aba noolaanaya bas qofka daciifka ana waa u dhamaatay taas ka dhamaysa ومعناها دي دون كان حلو طلقة وقف أول وقوي إنه نلاقيه قم بالو طلقة تايا كراليس لكن المانية ذا كله جزء إجا أو مؤسسات كدين تا مؤسسات كدولة ده لك عصاره تاس بان شاء الله تعالى يدين تو حكى تبطو عن كذا دونا تنور ملايين حلقة هذا ومبانا تاس بان شاء الله تعالى كذا دونا مفكرين بدون الإسلامي وقوات جران وده هي ورتاسي دبعتكم وجرتو وحي مركزين خلاص أنا كسر صارما توا عادي والله اللي قرين كرا رجعنا قواجره تمام إن شاء الله تعالى هدول هيدمو أيضا حلقة الجونية وكونستونا هدول هيدمو لكن المانية ده نوع عني وعلمانية حلسة وخطر قوي وأنا علمانية ده قرنية اللي بعتني كواد حد جرتوي وميل كسر لوسوق الدنيا ده كان الله بنلقيه دولة دي وردم بعد خاتين كتاعي وحوي ميل كسر والوسوق الدنيا وحلوسوق الدنيا هذا وعبارة على تنشون تومن شيري فكرة أوبانا وجودبنية وحوي والقوي يأكل الضعيف فكرة ده سوق بنية يعني دون قفك عقل بدن قفك أول قفك عصا نولان كذا بس أنت سوق بنية تعصنا الدين تو كسر شيء ده الدين تو قارن معنا سا الدين تو حيفرق سادات كوني هناك أخلاق قفك قيم أخلاق له إنه دون كان وحوي أصو وحوي كون نولان كذا لكن سأود يعيش وحلا سكوشة وحلا سكوشة تطاق واحد يعني قتال كان يتجلى عن صعوبة فكرة اللي جود بنية معناها والقوي يأكل ضعيف تعصنا الدين تكسر شيء ده تومي تشيري عن أركيسان وحوي فيلمات هوليوود كا ومرايكو إسرائيل كانوا فكرة نوعاس وكلا أي حبارسين إن شخصيات كما كانوا حويات كقول لي تي ضعيف كه كل شيء الله صهر مريو ولو سوق البيو ولا قال لي شخصيات ما كانوا حوي قضية شامبا نموذج رول موديل إن قال لي ناجي وحوي عائلات كه تومني تجد تومني ما قرأت حيلها صار رول موديل إن قال لي مركب فلسفة ده سوى فلسفة آد وخطر قوي مع المانية نوعاسة أو الله على المانية الشاملة وأنا تنا دون قرآن ضحيسته إسلام كنا توصل تاسوق معنا لكن سميتها كله جزء إجاه هو separation of church and state أما separation of religion from state تاس أيضا دولة دي ما واحد لنا إيو ما كديتو حقيقته دولة السلام عليكم ورحمة الله